السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا channel كيغا ومنا كورنر وحايدين رجينا إن شاء الله قيري عافماد ميل والبقات جوكتان فيديو مانتا إن شاء الله وحو كسابسان يهي دايت أو محا هذا أو فضود أو سهلا dadka isticmaali karin ama maxay ku socon karin diet-ka labada nooc diet soo dhigay channel-kayga diet-kan aad buu u fudud yahay waxba kaaga ma baahanahay hal shay kaliya uu kaaga baahan yahay waa biyaha dad baa jira oo maxay hado is xukumi karin cuntada ay cuni jireen ama maxay cuntada qaar goyn karin marka diet-kan waxa loogu talagalay dadka noocaas waxaa biyaha intaad bilaabin diet-ka si loo isticmaalayo biyaha faa'iidooyin badan uu leeyahay jirka xaqiisa iyo caafimaadka timaha iyo jirka iyo maqaarka sidoo kale jirooyin badan maxay hado dadka oo biyaha cabin jirooyin badan xagga kaliyaha dhagax wadna garaac waxyaabo badan ba biyaha maxay hado cabitistiisa ay ka difaacaysa marka faa'iidooyin badan u baahan yahay jirka xagga biyaha loo isticmaalo xagga diet ahaan diet-ka maxay qofka markuu rabo inuu diet ama miisaan inuu iska dajiyo biyaha waa shay aad muhiim u ah waa cabitaanka kaliya oo maxay hada calories lahayn ama maxay hada wax maxay hada ku cayilinaynin waad cabi kartaa sida rabtid waqti kasta sida u baahan tahay ama aadan u baahnayn caadi aad u cabi kartaa wax miisaan kugu soo kordhay male waxaa jira dad fikrad qabo maxay hada in hadii biyaha la cabo waqtiga cuntada la cabo ama maxay waqtiga cuntada ka horeyso waqtiga ahaata maxay ahayd dad fikrad u qabo inay calool u keenayo waxaasna waa wax qalaba caloosha waxa keena dufan iyo hilib baa keena biyahan waa maxay hada waa wax liquid oo biya marka musqusha gashid ka baxaayo marka wax ay calool keenayaan ama wax miisaan ay ku kordhinayaan ma jirto waxaa loo baahan yahay qofka markuu diet rabo inuu bilaabo biyaha inuu badsado ilaa 2 litir 3 litir kulaylaha markay jiraan uu sii badsado haduu awoodo waxaa loo baahan yahay biyaha inaad waqti kala duwan inaad cabtid lama rabo hal mar inaad isku daldashid wax fiican faa'iido laga helayo hal mar hadaa fariisadishan 6 bakeeri cabtid waxaa la rabaa waqti kastaba hal bakeeri 2 bakeeri inaad cabtid diet-kan qaabka loo isticmaalayo diet-ka biyaha regime almaa waxa waaye koodii hor marka subaxii soo kacdid waxaad cabaysaa 2 bakeeri biyo aad cabaysaa qabow kuleel sida ay rabtid u cab lindana ku miiro ha ku miiran aday ku jirtaa 2 bakeeri biyo cab 2 bakeeri biyo marka cabtid oo cabaar joogtid oo nasatid ama qaxwadaada cabtid ama quraacdaada markii la gaaro quraacda inta la gaarin hal bakeeri iyo bar oo biyo cabaysaa quraacda inta la gaarin hal bakeeri biyo iyo bar aad cabaysaa 5 daqiiqaad sugaysaa kadib quraacdaada cunaysaa wixii ahaataba quraacda markaad cuntid ilaa nus markaa maraysid hal bakeeri biyo hadana cabaysaa quraacda nuskeeda markaa cuntid hal bakeeri biyo aad ku darsanaysaa waxa la rabaa markaas inay calooshaada dareento inaad maxay hada full noqotay oo dhereg maxaa jira intaas oo biyo calooshaada waxa la rabaa cuntadii aad soo dhigatay inaadan dhameyn karin maxaa hada faa'iidada biyaha loo cabaayo cuntada ka hor iyo waqtiga cuntada inaad dareentid caloosh inay buuxsantay saa cuntadii maxaa hada waqti meel aad galisid isan u banaanaan marka waxaad dareemaysaa inaad dhergtay marka cuntada markaas waad ka kacaysaa markaad joogtid cabaar oo maxaa hada inta waqtiga qadada la gaarin 2 bakeeri biyo kala cabaysaa waad joogaysaa qadadaadi markay imaato hal bakeeri biyo iyo bar aad cabaysaa hal bakeeri iyo bar markaad cabtid 5 daqiiqaad fadhinaysaa kadib qadadii aad bilaabaysaa wixii ahaataba qadadaadi ama quraacdaad wixii cuni jirtay caadiga normalkaad cunaysaa qadada markaa cuntid cabaar nus qadada markaa maraysid hadana hal bakeeri biyo aad maxay hado ka daba geynaysaa markaas waxaad dareemaysaa calooshaada inay buuxsantay qadadii xataa ma dhameyn karaysid waana sidii loo baahnaa marka qadada dhameysatid oo maxay hada aad gaartid waqti oo maxay marka dhereg aad gaartid waad ka kacaysaa waad joogaysaa snack markay casirkii ama casriyadii waxaad cuni rabtid ama qaxwo ahaatay ama fruit wixii ahaataba intaad waxa afgelin cunto afkaad aad gelin hal bakeeri biyo ama 2 bakeeri intii ku suurta gashaad cabaysaa kadib waxaad cunaysaa cuni lahayd marmar waxaa jira jirka u baahan yahay biyaha oo aad dareemaysid laakiin ahaan kuma qabanayo gaajo ahaan ku qabanaysaa marka biyaha cabtid 2 bakeeri biyo amal marka ka tuurtid waxaad dareemaysaa inaad dhergtay oo cunto u baahneen marka sidaa darteeda
waqtiga cashada la gaaray sidoo kale hal bakeeri biyo iyo bar aad cabaysaa intaad cashada soo dhigan kadib 5 daqiiqo kadib cashadii aad cunaysaa cashada adigoo cunaaya nus markaa maraysid hal bakeeri biyo aad ka daba geynaysaa cashadii maxaa normal ahaan waxa loo baahan yahay qofka inuu maxaa intaas biyo u cabay waqtiga cuntada inuu maxaa calooshaada aad dareentid inaad caloosha in ciyo ku buuxsantay oo cashada aadan dhameystiri karin marka sidaa darteeda saddexda waqti aad cuntada cunaysa ama saddex waqti ahaatay afar waqti kasta aad cunto cun rabtid waqtigaas ka hor 2 bakeeri biyo cabaysa ama hal bakeeri bar kadib maxaa ahaado waqtiga cuntada markaa cuntid halfkeeda maraysid hal bakeeri biyo ka daba geynaysaa sidaas darteeda saddexda waqti intaasoo bakeeri cabaysa markaa hurdada ka soo kacdidna 2 bakeeri biyo adigoo waxna cunin oo waxna maxaa ahaado aad ku bilaaban labadaas bakeeri ku bilaabanaysaa waxaad dareemaysaa dietkan musqusha wax badan aad galaysaa waana wax fiican waxaad dareemaysaa wajigaaga maxaa hada korkaaga maqaarkaaga inuu soo qurxoonaaday sidoo kale dietkan qofkii isticmaala muddo ilaa hal bil gudaheeda waxaad dareemaysaa inuu miisaanka dhacay miisaan ilaa oo yani aad u badan ma aha 5 ilaa 6 kiilo camal waxay ku xiran tahay qofka iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo cuntada inta cunto uu cuni jiray laakiin waa hubaal miisaan inuu ka dhacay maxaa jira cuntadii aad cunaysay half aad maxaa ahaado biyo ku bedelatay marka waa wax normal ah inuu miisaanka dago sidoo kale waxaa loo baahan yahay marka dietkan sameynaysid biyaha xoogaa dhaqdhaqaaqa hadaa awoodid inaad sameysid dhaqdhaqaaq sida maxaa ahaado processka oo maxaa ahaado degdegsiisid kaliya maxaa ahaada diet adiga ma isticmaalaysid cuntadaada caadiga aad cunaysid aad cunaysaa laakiin kaliya biyaha u baad basatay qaabkii aad cuni jirtay cuntadana waxaa loo bedelayaa inaad maxaa ahaado saxankii aad cuni jirtay halfkiisa inaad maxaa ahaado cuntada ku bedelatid biyo marka asxaabta insha Allah waxaa idin rajaynayaa videoga inaad ka istafiidaan like iyo share subscribe asxaabtina la wadaaga fiidiyoyaal maxaa hada ku saabsan xagga dietka iyo healthka insha Allah fikradooyin badan waa idin soo wada insha Allah commentayaashiina maxaa hada aad u akhriya marka khayr idin rajaynaa insha Allah meel walba aad joogtaan assalaamu calaykum